madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay ka baaqday ka qaybgalka kulan wada jira oo baarlamaanku yeelan lahaa ayaa lagu soo waramayaa inuu maanta u duulayo dalka Uganda isagoo sidoo kale booqan doona Ethiopia iyo Djibouti ilo ku dhow xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa VOA u xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu marka hore booqan doono magaalada Kampala oo kamid ah ama dalka Uganda nidaaxde oo kamid ah dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya VOA-da ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu dhigiisa Uganda kala hadli doono qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya ay la galayso kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii Sooba ee dadka badan ku dhinteen madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu doonayo inuu madaxda Uganda, Ethiopia iyo Djibouti ka dhaadhiciyo sidii ay u taageeri lahaayeen qorshaha dagaalka cusub ee dowladdiisu Al-Shabaab ay la galayso kulankii baarlamaanka ee uu ka baaqday madaxweynuhu shalay ayaan ilaa imika dowladdu wax rasmiya ka soo saareen sababaha uu dib ugu dhacay waxaana ilo rasmi ah oo VOA-du la hadashay ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo ay dhici karto inuu baarlamaanka hortago marka uu ka soo noqdo safarka uu ku tagay Uganda, Ethiopia iyo Djibouti